hadday bari tahay iyo hadday galbeed tahay xaalad nabadgelyo ayay saaka ku bilaabantay doorashadii dhammaan goobaha codbixinta siday u dhan yihiin way furan yihiin xilligoodii baa la furay si fiican bay maxaanku dhahday ayay u shaqaynayaan lama cabiri karo dareenka farxadeed ee igu jira maanta een u qabo ummadda qof walba isagoo xor ah oo cid uu doono xulanayo doolanayo nabadgelyada lagu codeynayo cadeedaa soo baxday nabadgelyada farxad weyn bay tahay waxaan runtii u arkaa in ay soo bixi doonaan dad dalkan iyo dadkan matali doona laba doorasho oo golihii baarlamaanka ee sare iyo golihii dawladaha hoose lagu dooranayo labadaa warqadoodna qofku ay laba sanduuq saaka ku ridayaan iyadoo bari ilaa galbeed ay mar ka wada bilaamatay sidaa xorta ah ee aad aragteen ee kuyuyada dhaadheer loogu jiro saaka 4tii habeennimo ayay dadku sii fadhiisteen oo ay goobta sii dhigteen dhagaxan si ay u galaan kuyuga waxaaynu u soo dareernay goobihii codaynta iyadoo madaxweyne shicib mas-uul kasta sarkaal kasta sarkaal ku-xigeen kasta shaqaale kasta laba wada kusiman yahay in la tago qof walba uu codkiisa dhiibanayo farxad weyn bay ii tahay inaan halkan maanta waajibaad dastuuriya oo shacbigaygii iyo ummaddiisa reer somalilan o dhan aan kala soo qayb galo oonu caafimaad ku footayno oonu nabadgelyo ku codayno waa guul somalilan u soo hoyatay run ahaantii inay doorashadii ka bilaabantay halkan goobtan guriga shaqaalahana aan ka bilaabay oon codkii ka dhiibtay waa ilaahay mahadii intaa uu sheegay guddoomiyaha guddiga doorashooyinku ayuun baan sii xoojinayaa nabad ku codeeya waa laba doorasho muhiima aad bay adduunyadu inoo soo eegaysaa saaka haddaad daawateen waxa leexa idaacadaha waaweynee adduunka oo dhammi waxay ku soo jeedeen somalilan xil baa ina saaran nabadgeliyo iyo nidaam iyo wanaag ku codeeya shacbigana si nabaday maanta ku bilaabantay goobaha sida la sheegay qaarkood waqtigii loogu talagalay may bilaabmin waana iska dhacdaa mar kasta muraaqibiinta waxa laga yaabaa qaarkood inay habsaamaan laakiin wali waa goor hore waxaan filayaa wax walba inay caadi noqon doonaan mar dhow laakiin waxaan isleeyahay dareen farxadeed iyo guul baa maanta dareenkaygu weeyey guul somalilan waxaa uga garan tahay somalilan oo toosay somalilan midowday somalilan wadadii toosneed ku dhacday ilaahay subxaana wa tacaala ayaan uga dhigan tahay dawlad tayo leh ay ka dambeyn doonta insha allah technocrats oo reer ka muuqanay aqoon lagu geeyay qof kasta meeshiisa insha allah tacaala taasaa hamadeena weyn